kulan wacan daawadayaal halkani waa barta YouTube ee Cali Aadan Muumin si gaar ah waxaan u falanqeyn doonaa oo aan eegi doonaa doorashada ka dhacday magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose xarun ku meel gaar ah oo ah maamulka Jubbaland doorasho halkaas ka dhacday oo saddex musharax ay ku tartameen waxa ku guuleystay sida guddiga doorashada ay cadeeyeen madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxa ila jooga oo wararka qorayay maalmihii la soo dhaafay doorashadaasi iyo wararka guud ee Kismaayo iyo Jubbaland ba Khalid Fodaadi oo ah wariye ka tirsan goobjoog si kale oo madax bannaan u shaqeeya Khalid soo dhawow intaas kadib bal doorashada Jubbaland marka loo eego qaabka dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan xukuumaddu ay la rabtay iyo qaabka ay u dhacday bal isbarbar dhig iftiimina dadka u sameeyay cali waad mahadsan tahay horta marka koobaad waxa muhiim ah inaan dadka u sheegno in Kismaayo ay ka dhacday in laba doorasho mid waa lagu doortay in Axmed Maxamed Madoobe Axmed Islaam oo ah madaxweynihii hore maaragtay isagu kursiga hadda ku fadhiya isla markaana la leeyahay mar kale ayaa la doortay sidoo kale isla magaalada Kismaayo guri ku yaala waxa ka dhacday doorasho lagu doortay Cabdirashiid Xidig oo isaguna musharaxiinta isbahaysiga mucaaradka ku jiray marka halka waxa ka cad in wali aan la isku raacin cidda kaliya ee hadda maaragtay Kismaayo iyo Jubbaland madaxweyne ka noqonaysa isbarbariyaac laba dhinacna uu jiro laakiin dawladda federaalka hadii aynu u soo noqono sida iyadu rabtay iyo sida wax u dhaceen wali si dhameystiran oo ay dawladdu rabtay ayay wax u dhaceen ma oran karno walow wali ay jirto lug mucaarid oo maaragtay iyadu sheeganaysa in madaxweynihii ay iyaguna guri ku doorteen Axmed Madoobe hadii aynu eegno nidaamka loo doortay waxa la tartamay nin iyo gabadh marka musharaxiinta doonaya in ay madaxweyne ka noqdaan Puntland tiradu intaasi way ka badnayd marka waxa muuqanaysa in wali isdhexyaac iyo istijiid dhinacyadii hayay uu jiro doorashadiina ay Jubbaland ay yeelatay laba madaxweyne marka laga soo tago labadaas madaxweyne ee aad sheegtay in Jubbaland lagu doortay waxa jira xildhibaano badan oo nidaamka jira ee xukuumadda mucaaradku ah oo doorashada gadaalka riixaya qaarkood warbaahintu la hadashay waxay xaqiijiyeen in doorashadu xaq iyo xalaal ay tahay iyadoo taas laga duulayo xukuumaddu waxay soo saartay warqado ay ku leedahay lama shaqeyn doono Jubbaland wax kasta oo doorashadaas ku saabsanna natiijo sax ah uma aqoonsanin marka Jubbaland shaqooyinkoodii wax caqabad ma ku noqon doontaa khilaafka ka dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo Jubbaland hadii aynu eegno ma aha mid ka bilowday doorashada hadda socota waxaan oran karnaa wuxuu ahaa mid markii dawladda federaalka ee hadda talinaysa ay timid ayuu la bilowday khilaafkaasi marka Jubbaland inta way jiraysay weynay socotay oo maaragtay hawlaheedu si gaar ah ay u fushanaysay marka Axmed Madoobe iyo maaragtay dawladda uu mas'uulka ka yahay caqabadka kullaba dawladda federaalku iyada dunida uga mas'uula Soomaaliya hase ahaatee Axmed Madoobe iyo maaragtay nidaamka maamulka Jubbaland waa dad isagu waxa uu sheegay markii ay doorashadu dhacaysay ka hor waraaqo soo saaray wuxuu sheegay in cirka iyo dhulka iyo badaba uu xidhay marka Axmed Madoobe markay noqoto Jubbaland isaga kaga awood sareeyay dawladda federaalka diyaarado ciidamo siday oo leeyahay waxay ka digayeen garoonka Kismaayo waa ka diiday marka waxay muujinaysaa nin walba intiisa inuu ku adag yahay Axmed Madoobe marka hadda ma heli doonaa wada shaqeyn dawladda federaalka aragtidaada maadaama aad ogtahay wararka dawladda ka soo baxay iyo Jubbaland xaaladeeda guud والله inagoon ka hor dhacayn doorashadii hadda Axmed Madoobe ayaa la doortay oo madaxweyne mar kale loo doortay sidoo kalena Cabdirashiid Xidig ayaa isaguna guri lagu dhex doortay magaalada Kismaayo si dawladda federaalka waxa la sugayaa waraaqda ay ka soo saari doonto ah in ay tiraahdo doorashadaasi waanu soo dhaweynaynaa iyo ma soo dhaweynayno marka ayaan ogaan karnaa in ay sii wada shaqeyn karaan iyo in wali khilaafkoogii uu noqday mid baasiin cusub lagu shitay aragtidaada marka maxaa ahmiyad gooniya dawladaha dariska sida Ethiopia iyo Kenya ay u siinayaan doorashada Jubbaland waa deegaan muhiim ah marka ay noqoto Soomaaliya waxay ku taalaa xuduud waxay la wadaagtaa xuduud Kenya iyo Ethiopia waxaana ku taala dekado ay ka mid tahay Kismaayo oo ah goob istiraatiiji ah sidoo kale Jubbaland dadkeedu waxay inta badan u socdaalaan labadaasi wadan ee Ethiopia iyo Kenya dana badan baana iskaga xiran waana meel ay dawladahaasi Soomaaliya danaha ay ka leeyihiin ay ka dhameystiran karaan marka taas ayaa keenaysa baan qabaa in Jubbaland doorashadeedu ay ka duwanaato maamulada kale wixii ka dhici jiray madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland 2013 iyo 15 ayaa la doortay oo uu soo hogaaminayay waa 2013 ilaa 2019 oo maanta la joogo iyo sanado kale oo hadda loo sii doortay sida guddigu ay sheegeen marka shaqo ay tahay in la qabto oo hadda Axmed Madoobe aragtidaada muuqata miyaa jirta
axmed madoobe sidii uu maaragtay ku ololeeyay markii khudbadii uu ka jeediyay maaragtay musharaxnimadiisa uu baarlamaanka cusub ee Jubbaland u jeediyay waxa uu sheegay in muddo 18 bilood uu maaragtay dagaalka mucaaridka hadda uu kula jira maamulkiisa uu kaga takhalusi doono Jubbaland uu gacanta dawladda uu soo wada gelin doono waxyaabo kale oo uu ballan qaadina way jiraan walow ballanqaadkan markii 13 la dooranayay mid la mid ah uu sameeyay haddana dadku waa la eegayaa bal waxa uu keeni doono axmed madoobe iyo rabitaanka cusub ee hadda kale Khalid Fodadi aad buu mahadsan yahay oo ah wariye inta badan wararka ku qora baraha bulshada gaar ahaan qaybo ay ka mid yihiin Twitterka iyo Facebooka oo ila falanqeynayay bal doorashada Jubbaland sida ay dadku u arkaan iyo faahfaahin inta ka badan si loo helaba waa mahadsantiin daawashadiina